barnaamijkani wuxuu ka hadlayaa hooyooyin lagu qasbay inay gabdhahooda soo tuuraan iyo rag aan maanta helaynin haween ay guursadaan iyo waliba gabdho arrintan darteed loo afduubtay iyo sidoo kale waalidiin qoys taagan waxaa caalamku maanta baahi u qabaa in ka badan 200 milyan oo gabdhood haddaba sidee ku dhacday maxaase keenay inaanan wax badan ka ogeyn arrinkan su'aashaas ayaan isku dayaynaa inaan ka jawaabno bal fiiri adoo raalli ah isku day walaal inaad akhriso halkani waa gobolka Guangxi ee koonfurta dalka Shiinaha qoyskani waxay raadinayaan gabadhoodii Pang Shuting oo la weysan yahay muddo bil ah maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay ku ciyaaraysay gurigooda hortiisa ayadoo kadibna la waayay meel alla meel ay gashay baadi goobkii loo galay ilaa hadda wuxuu ku soo dhammaaday natiijo la'aan waalidiinteedu waxaan xasuusteedii ahayn ma haystaan sidee ku dhacday inay waxaan sameeyaan waxay ahayd gabar aad u yar aad iyo aad ayayna u qurux badnayd dalka Shiinaha in ka badan 200,000 oo qof oo iskood isu xilqaamay ayaa waxay baadigoob ugu jiraan gabdho la xaday waxayna noqdeen meesha kaliya ay ku hirtaan waalidiinta quusta taagan ayagoo sawirrada iyo macluumaadka ku saabsan gabdhaha la xaday sida Pang Shuting internetka ku faafinaya gabdhaha la xadaahay ma ahaan arrin ku cusub dalka Shiinaha u guurinta wiilashu waa mid aad iyo aad u qarash badan maxaa yeelay reerka gabadhu waxay sugayaan hadiyado aad u qaali ah sidaa daraaddeed dadka qaar ayaa laga yaabaa inay sameeyaan xaditaan ama afduub ay u geystaan gabdhaha si ay u soo korsadaan kadibna ay ugu guuriyaan wiilasha ay dhaleen dalka dunida ugu dadka badani wuxuu maanta baahi u qabaa malaayiin gabdho ah qaar ka mid ah gobollada dalkani carruurta ku dhasha boqolkii gabdhood waxaa ku soo aadaya 135 wiil waa natiijo aad uga eg tijaabo laga sameeyay dalka Mareykanka 10 sano ka hor dagaalkii labaad ee dunida kadib waa waqtigii barwaaqada dhaqaalaha waxay u muuqataa in xaaladda nololeed ee galbeedku aad uga fiican tahay waqtiyadii tagay laakiin waxaa jirta cabsi ku aadan inaan barwaaqadaani sii jiri doonin marka la eego horumarka laga sameeyay dhinaca caafimaadka iyo sare u kaca tirada dadka dunida gaar ahaan waddamada soo koraya maalqabeennada Mareykanka ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq looga hortegayo carruurta faraha badan ee dunida ku dhalanaysa waxaa dhaqdhaqaaqan horboodaya aqoon-yahano caan ah iyo waliba maalqabeenno waaweyn oo uu ka mid yahay John D. Rockefellerkii saddexaad waa rag saamayn badan aadna ugu dhow maamulka sare ee dalka Mareykanka waxay hay-adahoodu ilaa hadda ka dhisan yihiin bartamaha magaalada New York sida hay-adda Ford iyo hay-adda Rockefeller iyo waliba hay-ad khaas ah oo loogu magac daray golaha dadka hay-adahan iyo kuwa la midka ah waxay halkan hoggaanka u hayaan faafinta cabsigelin ku aadan dadka dunida ee sii badanaya iyo tallaabooyin adag oo looga hortegayo badashada dadka dunida saddexaad Matthew Connelly oo ku takhasusay taariikhda kana tirsan jaamacadda Columbia ayaa xil gaar ah iska saaray arrintan asagoo dabagal iyo cilmi baaris dheer uu sameeyay natiijadii ka soo baxday ku faafiyay buug hay'adda isku magacaawday golaha dadka uma arkaynin shaqadeeda xakamaynta dadka dunida oo kaliya laakiin waxay aaminsan yihiin in xil ka saaran yahay hagaajinta quality-ga dadka dunida waxay doonayaan inay yareeyaan carruurta ay dhalayaan
dadka ku nool waddamada soo koraya, gaar ahaan kuwa ay ugu yeereen dadka aan loo baahnayn oo dhalaya carruur aad u fara badan oo faqri ah, kuwaasi oo cabsi laga qabo inay tiradooda ku qabsadaan dunida. aragtidan waxaa qaatay hogaankii sare ee dalka Mareykanka sanadkii 1966 madaxweynihii Mareykanka Lyndon B Johnson wuxuu shuruud adag ku xiray kaalmihii dhaqaale ee Mareykanku uu siinayay waddamada soo koraya. shuruudaasina waxaa ka mid ahaa in dalka la siinayo dhaqaalaha uu yareeyo tirada dadkiisa. hadalkani waa sheeko dhex martay madaxweynihii Mareykanka iyo wasiirkiisii beeraha. u sheeg dadka kula shaqaynaya, waxaan doonayaa inaan ogaado inta uu la eg yahay abuurka beeraha ee aan ku deeqayno iyo waxa aan ku bedelanayno. ma doonayo qofna inuu yiraahdo waxaan ku quudinaynaa carruur baahan. waxaan doonayaa inaan ogaado waxa aan ka helayno Indira Gandhi, maxaa yeelay inta badan kama helno waxa aan dhabar jabin ahayn. wuxuu joojiyay kaalmihii dhaqaale ee Mareykanku siin jiray Hindiya, asagoo xujo uga dhigay ra'iisul wasaarihii dalka Hindiya Indira Gandhi inay aqbasho dalabaadka uu u soo jeediyey. waxaa isi soo taray eedeymaha loo jeedinayo waddamada reer galbeedka, iyadoo lagu eedeynayo inay ujeedooyin gumaysi ka leeyihiin mashruuca joojinta dhalmada. sidaa daraaddeed waxaa la aasaasay hay-adda dadka ee qaramada midoobay UNFPA. hay-addan oo u muuqata mid dhexdhexaad ah ayaa waxaa dhaqaale aad u fara badan ku fangareeyey waddamada reer galbeedka, dhaqaalahaas oo loogu talagalay mashruuca yaraynta dhalmada. waddamada ugu muhiimsan ee dhaqaalaha bixiyey marka laga tago Mareykanka waxaa ka mid ah Ingiriiska, Jarmalka iyo Switzerland iyo weliba waddamo kale oo reer galbeed ah. kuuriyada koonfureed waxay ka mid ahayd waddamadii ugu horreeyey ee tijaabada lagu sameeyey. dalkani wuxuu ahaa mid aad u burbursan kadib dagaalkii Kuuriya. sidaasay tahay waddankani wuxuu ka mid ahaa waddamada dunida ugu horreeya xagga carruurta dhalanaysa. waxaa horboodayey mashruuca dib u dhiska dalkani waddanka Mareykanka, waxaana barnaamijtiisa ugu muhiimsan ka mid ahaa joojinta dhalmada. afartan haweenihii waxay ku nool yihiin tuulo 200 kiiloomitir u jirta caasimadda Seoul. Ahn Sun-hee si wanaagsan ayay u xasuusataa dagaalkii iyo waxyaabihii ka dambeeyaba. dowladda ayaa noo sheegtay inaan joojino dhalmada, annaguna waan fulinay. annagoo haween ah ayaa carruurta soo tuuraynay, waxaan aaminsanayn inaan wax saxa samaynayno. annagoo raalli ku ah ayaan arrintan samaynaynay. reer galbeedku waxay ku deeqeen baabuur loo diyaariyey inay noqdaan xarumo caafimaad oo guurguura. qoraallada la hayo waxay caddaynayaan mashruucan inaan loogu talagelin taageero dhinaca caafimaadka. mid ka mid ah hay-adaha Mareykanka waxay amar toosa siinaysaa wasaaradda caafimaadka ee Kuuriyada Koonfureed. ujeeddada baabuurtan isbitaalada guurguura laga dhigay waa in la xakameeyo tirada dadka dalka Kuuriya, taas oo qayb ka noqon doonta sare u qaadista nolosha dadka dalka Kuuriyada Koonfureed. ayagoo kaashanaya dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa qorsheeyayaalka qoyska ee reer galbeedku waxay howlgeliyeen dad aad u fara badan oo ay ugu yeereen shaqaalaha caafimaadka. waxay shaqaalahaasi socdaal ku kala bixiyeen dhammaan waddanka ayagoo tira koobaya dadka carruurta dhalaya, isla markaana waxay si toosa uga dalbanayeen inay joojiyaan dhalmada carruurta. sidoo kale baabuurta laga dhigay xarumaha caafimaad ee guurguura waxay gaadheen tuulooyinka fogfog ee dalka Hindiya, iyadoo ujeeddadu tahay mashruuca joojinta dhalmada. qorsheeyayaalka qoyska reer galbeedka ayaa dalkoo dhan ku faafay. waxaa ka mid ahaa doctoorka Mareykanka ee Sheldon Sigel. isbitaalka ugu weyn ee magaalada New Delhi ayuu wuxuu ka hirgeliyey qayb loogu talagalay dhalmada, isagoo samaynayay tijaabooyin la xiriira qalabka lagu joojiyo dhalmada. qalabkan waxaa ka mid ahaa waxa loo yaqaano IUD oo qaybihii ugu horreeyey ee la soo saaray aad looga nacay dalalka reer galbeedka. wuxuu dhakhtarkani si sharci darraa ku geliyey qalabkan dalka Hindiya, isagoo sheegaya inuu yahay waxyaabo loogu talagalay ciidda. isla markaana wuxuu siiyey haween aad u fara badan oo ku nool dalka Hindiya, iyadoo xukuumadda Hindiya ayna waxba kala socon.
farriimihiisa qaar ka mid ah ayuu wuxuu ku qoray sidan: qalabkan IUD waxaan u gudbinay isbitaallo gaar loo leeyahay annagoo ka fogaanayna isbitaallada dawladdu leedahay. markii hore waxaan ku tijaabinay daanyeerada, laakiin waxaan cabsi weyn ka qabnaa haddii wasaaradda caafimaadka dalka Hindiya arrinkan ogaato kadibna ay diido inay halis gasho tijaabooyinka bani'aadamka aan ku wadno ee qalabkan. laakiin waqti dheer kama soo wareegin kadib markay mashruucan ku soo biirtay xukuumadda dalka Hindiya. hay-adda iskaashiga iyo horumarinta Maraykanka ayaaba qalabkan ugu deeqday dalka Hindiya iyadoo weliba aan la jeermis dilin, taasoo keentay dhibaatooyin caafimaad oo aad halis u ah iyo weliba dhimasho. sidaasay tahay waxaa sii siyaaday cadaadiska ay qoysaska ku hayaan kooxaha ka shaqeeya mashruuca joojinta dhalmada ayagoo kaashanaya dawladda Hindiya. waxayna fulinayeen qorshayaal ay dhalmada uga joojinayaan qoysas aad u fara badan ayagoo isla markaana siinaya abaalmarin. dadka ugu badan ee mashruucan ugu fulinayay waxay ahaayeen haweenka ka soo jeeda qoysaska faqiirka ah isla markaana xagga aqoontoodu ay hoosayso. waxaa la siinayay dhaqaale ayagoo looga bedelanayo in madhalays laga dhigo. dhaqaaluhu wuxuu ka imaanayay Maraykanka, qaramada midoobay, Sweden iyo Norway, waxaana la siinayay dadka ayagu ilmaha iska gooya amaba ku dhiirigeliya dadka kale inay madhalays noqdaan. kaba darane waxaa la samaynayay goobo aad iyo aad xagga caafimaadka u liita oo dadka dhalmada looga joojinayo ama madhalays looga dhigayo. Dr. Segal ayaa booqday goobahaasi qaarkood, wuxuuna u qoray mas'uuliyiintiisii: maalintii Axadda waxaan ku qaatay goob la keenay haween aad u fara badan si madhalays looga dhigo ama ilmaha looga joojiyo. xaaladdu waxay ahayd mid aan la qiyaasi karin. markii dhakhtarku qalliinka sameeyo, isla markiiba haweentu waxay ka baxaysay iridda isbitaalka. dhab ahaantii waxaan aaminsanahay tijaabooyinka aan ku samayno daanyeerada inay wax badan ka wanaagsan yihiin qalliimada iyo dhalmo joojinta aan ku samaynayno halkan. muddo 2 sano gudahooda waxay dawladdu qasab uga dhigtay in ka badan 8 milyan oo rag iyo dumar ah inay madhalays noqdaan. waa tiro yaab badan oo aan taariikhda hore loo arag. aragtida xakamaynta tirada dadka waxay ka mid ahaayeen arrimaha aad iyo aad u soo jiitay hogaamiyayaasha caalamka qaarkood sida Indira Gandhi. waxaa lagu qanciyey inay dalalkooda ku horumarin karaan hal jiil hadday arrintan fuliyaan, ayagoo weliba og dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka arrintan lagu samaynayo. waxayse iska indhatirayeen in hooyooyin iyo aabbayaal ku nool gobollada fogfog ee faqiirka ah ay carruurtu yihiin kaydka keliya ay ku tashanayaan. keliya sare u qaadidda xagga nolosha iyo waxbarista gabdhaha ayaa waxay si toosa sabab ugu noqonaysay in dhalmadu hoos u dhacdo. laakiin waxyaabaha kor u qaaday dhalmada dalalka Aasiya waxaa qayb weyn ka ahaa in qoysasku ay dhalmada iska wadayaan ilaa uu u dhasho wiil oo ay ka doorbidayaan gabadha. qorsheeyayaalka qoyska reer galbeedka waxay ogaadeen in doorbiditaanka wiilka ay gabadha ka doorbidayaan dadka Eeshiyaanka uu yahay furihii ay muddo dheer raadinayeen si ay u yareeyaan dhalmada. qorsheeyayaalka hay-adaha reer galbeedka sida golaha dadka iyo hay-adda Ford waxay ogaadeen in doorbididda wadamada soo koraya ay doorbidayaan wiilasha kana doorbidayaan gabdhaha ay tahay arrin aad iyo aad u fududaynaysa inay carruurta caloosha ku jirta soo tuuraan haddii la siiyo qalab ay ku ogaan karaan wiil iyo gabar midka uu yahay, taas oo noqon karta in la yareeyo amaba la joojiyo dhalmada faraha badan ee waddamadaasi ka jirta. maamulaha hay-adda golaha dadka wuxuu caddeeyey dariiqada loo marayo arrinkan sanadku markuu ahaa 1967. waxaan u baahannahay inaan baaritaanka iyo horumarinta sii wadno si aan ugu guulaysanno in si fudud lagu ogaado cunuga caloosha ku jira nuuca uu yahay, si ay labada waalid u helaan wiil oo keliya. arrinkani wuxuu dhaboobay 70meeyadii markii aqoon-yahanada caafimaadku ay ku guulaysteen inay helaan qaab lagu ogaan karo nuuca uu yahay ilmaha caloosha ku jira. waqtigaasi waxaa sharci darro ahaa dhammaan waddamada soo koraya in carruurta laga soo tuuro uurka. laakiin Dr. Segal oo xiriir wanaagsan la lahaa xukuumadda Maraykanka ayaa wuxuu ku guulaystay inuu arrimo badan socodsiiyo. Henry Kissinger wuxuu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee madaxweynihii Gerald Ford. warqad muddo dheer la qarinayay ayuu wuxuu ku leeyahay: waa in wax laga qabto oo la joojiyo tirada isu soo taraysa ee dadka waddamada soo koraya. wuxuu si cad u sheegay in soo tuurista carruurta caloosha ku jirta ay tahay dariiqad aan marnaba laga maarmi karin si loo xakameeyo tirada dadka waddamada soo koraya. wuxuu leeyahay:
waddan ku guulaystay ma jiro inuu dadkiisa dhimo asagoo uun samaynaynin in la soo tuuro carruurta caloosha ku jirta ayagoo haweenku bannaanbaxyo ka samaynaya dalka Maraykanka oo dalbaya inay jirkooda u madax bannaanaadaan waxaa hay-ado iyo siyaasiyiin Maraykana ay cadaadis ku hayeen waddamada soo koraya hogaamiyaashooda si ay u sharciyeeyaan soo ridista carruurta uurka ku jirta soo ridista gabdhaha caloosha ku jira ee socotay 10 sano waxay sabab u noqotay inay bataan tiradii ragga isla markaana ay aad u yaraato tirada haweenka natiijadii arrintaasi ka dhalatay waxay si cad uga soo baxday dhammaan dalka Hindiya mar kale ayay dhibanayaal noqdeen gabdhaha yaryar iyo haweenka faqiirka ah sida Sajina oo 19 jir ah hooyaday way dhimatay walaashayna way ka daba dhimatay anigu waxaan jiray 8 bilood oo kaliya aabahay wuxuu noqday Brelis ayeydeen ayaa gacanta nagu haystay aniga iyo 3 walaalahay ah aabahay wuxuu ku qasbanaaday inuu tuugsado waxyaabaha uu soo helo ayaan ku noolayn sidaas ayaan ku soo kornay anagoo 4 ah aniga iyo walaalahay Sajina waxay la nooshahay walaalkeed Shamshul iyo reerkiisa asaga ayaana u ah ilaaliye hadda ka hor muddo 3 sano laga joogo ayuu soo badbaadiyay kadib markii muddo la weysnaa markii Sajina la waayay Shamshul wuxuu iibiyay wax alla wuxuu haystay kadibna wuxuu u safray caasimadda New Delhi taasoo tuuladiisa ka fog 2,000 oo kiiloomitir wuxuuna arrinkiisa gaarsiiyay hay'ad gargaar niman ayaa walaashay shaqo u soo bandhigay way ka diiday muddo yar kadibna waa la waayay ayagoon ogeyn ayay telefoonkooda iga soo wacday iyadoo oynaysa oo barooranaysa oo iga dalbanaysa inaan ka saaro meesha ay ku jirto waa safray kadibna waxaan ugu tagay meesha ay ku xirnayd dhiig ayaa ka da'ayay meel kasta oo wajigeeda ka midana waxaa ku yaalay dhaawac Shamshul kaligiis wuxuu awooday ma jirin maxaa yeelay wuxuu ka soo jeedaa dabaqadaha aadka u hooseeya booliskuna dhowr mar ayay soo cayriyeen laakiin cadaadis ka yimid dadkii tuuladiisa ayaa wuxuu booliska ku qasbay inay farageliyaan kadibna ay tagaan meeshii lagu haystay Shamshul walaashiis islaantan ayaa sheeganaysa inay tahay sodohdeed waxayna soo saartay warqad ay sheegayso inay guursatay Sajina gobolka Haryana waxaa ka jirta gabdho la'aan sidaa darteed qoysasku waxay qaab walba ku raadinayaan gabdho ay u guuriyaan wiilashooda gudoomiyaha tuulada ayaa sharaxaya arrinta ku dhacday gabadhan $900 ayaan ka bixinay gabadhan waxaan u haysanaa arrintaas cadayn fadlan soo saar gabadha maxaa yeelay kama tagayno wax kasta waxay ahaayeen sharci waxaan guursaday ayagoo marqaati ka yihiin 11 qof wax walba waxay cadaadeen markii gabadhii lagu wareejiyay booliska tuulada ayaa dhaqaale soo aruurisay si ay Sajina u iibsadaan kadibna ugu guuriyaan wiilal badan mid ayaa loo guuriyay laakiin 7 kale ayaa ka faa'iideystay ayagoo ka dhigtay adoon ay soo iibsadeen arrinku Sajina oo kaliya kuma eka tuugada dadka ka ganacsata ayaa waxay xaafadaha faqiirka ka raadinayaan gabdho haddii lala tago aan cidiba soo raadinayn dambiilayaashu inta badan waa dariska ama kuwa ay aqoon isu leeyihiin dambiilihii Sajina afduubtay si xorriyada ayuu ugu nool yahay tuulada ayadana waxaa lagu dhajiyay inay tahay qof jirkeeda ka ganacsata ayadoo qasab ay ku noqotay inay ka cararto tuulada haweenka iyo gabdhaha sida Sajina oo kale wali waxay dhibanayaal u yihiin qorshihii ay dejiyeen maalqabeennada reer galbeedka ee ku aadanay joojinta dhalmada taariikhda Hindiya hore uma aynan jirin in hooyo go'aansato inay wiilal kaliya dhasho gabdhahana ay soo tuurto laakiin dhaqankan waxaa la yimid dhakhaatiirta hay'adda Ford iyo kuwa la midka ah oo mashruucan dhaqan geliyay waxay tababareen kumanaan arday ah kuwaas oo loo tababaray sida loo ogaado nooca uu yahay ilmaha caloosha ku jira isla markaana waalidiintu ay go'aan ka gaaraan soo ridida cunugaas
dhakhtarkan oo lagu magacaabo Dr. Bonnet wuxuu tababarkiisa ku qaatay isbitaalkii uu ka bixin jiray casharada Children's Sagaal oo uu ku bari jiray dadka qaabka lagu ogaan karo ilmaha caloosha ku jira intuusan dhalan. habeenkii iigu horreysay waxaan arkay bisad cad hiliba sidata. bisadaha iyo eeyuhu ma ahan wax lala yaabo isbitaalada waaweyn ee dalka Hindiya, laakiin bisadani waxay sidatay cad hiliba oo weyn. gudaha ayaan soo galay kadibna waa weydiiyey. waxay yiraahdeen waxaa laga yaabaa inay qaadatay ilmihii la soo tuuray. wuxuu ahaa ilmo 7 bilood jira oo sariirta dhalmada hoosteeda lagu tuuray. waxay ugu yiraahdeen waa mashruuc cilmi baaris ah oo lagu ogaanayo ilmaha caloosha ku jira nooca uu yahay. waxaa la sii og yahay in hooyadu ay soo tuurayso haddii uurku noqdo gabar. ogaanshaha nooca ilmaha caloosha ku jira intuusan dhalan waxay ahayd tallaab muhiim u ah la dagaalanka dhalmada. wuxuu suuro geliyey in la soo tuuro gabdho badan oo caloosha ku jiray, waxaana si weyn u yaraaday gabdhihii mustaqbalka dhali lahaa ilmo kale. gabdha yaraantu sidoo kale waxay ka jirtaa dalka Shiinaha, ayadoo 5% ka mid ah wiilasha dhasha ayna heli doonin mustaqbalka gabdha ay guursadaan. halkan sidoo kale wiilasha ayaa laga doorbidayaa gabdhaha. waalidiinta ka walwalsan mustaqbalka wiilashooda ayaa waxay baadigoob ugu jiraan gabdhihii ay u guurin lahaayeen. sidaas darteed waxay yimaadaan suuqyada guurka sida midkan ku yaala magaalada Shanghai oo la iskugu yimaado maalin kasta oo Axad ah. 2 mar ayaan imid suuqan anoo raadinaya gabar aan u guuriyo wiilkayga. dad badan ayaan la kulmay oo aan iswaraysanay, telefoonadana kala qaadanay. waxaan ka codsaday haddii suuragal tahay in gabdhahoodu la kulmaan wiilkayga. waalidiinta haddaan nahay waxaan ku dadaalnaa sidaan ugu heli lahayn ilmaheena guur. halkan waxaa iskugu yimid hooyooyin lagu qasbay inay hal cunug dhalaan oo ah qaabka ay dawladda Shiinuhu ku xakamaynaysay tirada dadka. 1972 madaxweynihii Mareykanka Nixon iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda Kissinger ayaa waxay ka degeen caasimadda Shiinaha ee Peking. waxay kulan taariikhi ah la yeesheen hogaamiyihii Shiinaha Mao Zedong ayagoo ka wada hadlay isu dheelitirka awoodda dunida iyo waliba nabadgelyada adduunka. ma jiro sabab aan cadow isugu ahaano. midkeena ma rabo inuu midka kale muquuniyo, sidoo kale midkeena ma doonayo inuu dunida dhan qabsado. laakiin sidaas ay tahay waxa Mareykanka cabsi weyn ku hayay awoodda Shiinaha ee aadka u weyn iyo waliba shuuciyadda. waxa sidoo kale walwal culus ku hayay tirada faraha badan ee dadka Shiinaha. booqashadii Nixon ayaa waxay albaabada u furtay in reer galbeedku xakameeyaan tirada dadka Shiinaha. madaxweynihii xilka uga dambeeyay Mao ayaa wuxuu dhaqan galiyay qorshe ah in qoys walba dhala hal cunug, taasina uu ku macneeyay horumarinta dalka. waxaa la howlgeliyay malaayiin howlwadeenno caafimaad ah ama sida loo yaqaanayba howlwadeennadii caafimaad ee kabala'aanta ahaa. shaqadoodu kaliya waxay ahayd inay waddankoo dhan gaarsiiyaan qalabka looga hortago uurka iyo weliba inay si dhaba u hubiyaan in qoys kastaa dhalo hal cunug. in qoys walba dhala hal cunug wuxuu noqday barnaamij ay xukuumaddu wadato oo cid walba qasab ku ah. qoys kasta oo arrintaasi garab marana wuxuu la kulmayay ciqaab aad u daran. xukuumaddu halkan handadaad ayay darbiyada ugu soo dhajisay shacabka. halkan waxaa ku qoran ilmaha caloosha ku jira waad soo tuuri kartaa ama waxaad doonto oo kale ayaad ku samayn kartaa marka laga reebo inaad dhasho oo adduunka u yimaado. inkasta oo warbaahinta reer galbeedku ay soo tabinayeen in dadka lagu qasbayo inay noqdaan madhalays ama ilmaha laga soo tuuro, haddana xukuumadaha iyo dawladaha reer galbeedku waxay dhaqaale ku taageerayeen mashruucan. markii hore arrintu waxay ku ekeed hay'ado gooni loo leeyahay sida hay'adda Ford iyo kuwa la midka ah. laakiin sanadkii 1979 hay'adda dadka ee qaramada midoobay waxay Shiinaha ugu deeqday $50 milyan oo loogu talagalay mashruucan. mid ka mid ah shaqaalaha hay'adda caalamiga ah ee qorsheynta qoyska ayaa waxay ka digtay halis soo socota. arrinkani hadduu warbaahinta gaaro wuxuu ku dhici doonaa dhagaha qof kasta, waxayna noqon doontaa fadeexad weyn. halkan waxaa ka jira nidaam shuuci ah oo kelitaris ah, dadka nasbaya inay carruurtooda soo tuuraan iyo laynta carruur noolaan lahayd. arrinkani hadduu bannaanka u soo baxo waxaa adkaan doonta in fasiraad macquula laga bixiyo.
laakiin hay-adda dadka ee qaramada midoobay halkii ay dhegaysan lahayd digniinaha ka soo baxaya mashruucan waxay abaalmarin siisay dadka ku lugta leh mashruuca joojinta dhalmada. haddaba yaa la siiyey abaalmarinta? umaynan dooran inay siiyaan dad u halgamay xuquuqda bini'aadanka. waxay u doorteen inay abaalmarinta siiyaan jenaraalkii Shiinaha ahaa ee hogaaminayay mashruuca dadka ku qasbaya inay ilmahooda soo tuuraan. sidoo kale waxay siiyeen Indira Gandhi oo mas'uul ka ahayd barnaamijkii ugu xumaa taariikhda Hindiya ee dabargoynta dhalmada. haddaba hay-adda qaramada midoobay ee dadka wax dib u eegis ma ku samaysay lugta ay ku lahayd barnaamijkan foosha xun? haba yaraatee wax dooda lagama furin lugta hay-addani ay ku lahayd barnaamij qasabka ahaa ee dadka looga joojinayay dhalmada. haddaba su'aashu waxay tahay, haddaan qaramada midoobay wax dib u eegisa ku samaynin wixii hore u dhacay, sidee loogu kalsoonaan karaa inuusan soo laaban? waxaa abaalmarino lagu sharfay hogaamiyaal si cad oo sugan ugu xadgudbay xuquuqda bini'aadanka. mas'uulkan ka tirsan hay-adda dadka ee qaramada midoobay wuxuu isku dayayaa inuu fasiraad ka bixiyo arrinka. abaalmarintu waxay ka timaadaa waddamada xubinta ka ah hay-addan, annagu keliya waxaan fulinnaa soo jeedintooda. maraykanku wuxuu ahaa waddanka ugu muhiimsan waddamadaas, wuxuuna bixinayay 40% ka mida dhaqaalaha hay-adda. hay-adda dadka ee qaramada midoobay waxay la mid ahayd boombale gacanta ugu jira dadka dhaqaalaha bixinaya. siyaasadda xakamaynta dadka ee reer galbeedku ay taageerayeen waxay sabab u noqotay in dalka Shiinaha ay ku nool yihiin rag kor u dhaafaya 30 milyan oo noloshooda aan heli doonin gabdho ay guursadaan. ninkan oo ka tirsan dadka isu xilqaamay raadinta gabdhaha la waayay wuxuu booqanayaa reerkii Panchooting, laakiin nasiib darro wax farxada uma wado, sababtuna waxay tahay weli lama hayo raad iyo ruux toona. ma garanayo waxaan ku tilmaamo xaalkayga, maxaa yeelay ilaa hadda dhiig xataa maanan arag. waxaan aaminsanahay inay weli nooshahay. maalin walba waxaan sugaa in la ii sheego war farxad leh oo ii sheegaya inay nooshahay. aad ayaan uga walwalsanahay. inta badan dadka afduubta gabdhaha waa kuwa ka tirsan tuulada. ka hor gabadhu intaynan gaarin, dadka afduubka ka dambeeya waxay sii martaa gacmo badan. midka afduubtay iyo kuwa dadka ka ganacsada tuulada ilaa magaalada, ayadoo marka dambena loo dhoofiyo gobollo kale. meeluba meeshay ka dambaysana waxaa sare u sii kacaya qiimaha lagu kala iibsanayo, maxaa yeelay qolo kasta waxay doonaysaa inay lacag ka samayso. dadka ku hawlan raadinta gabdhaha la xado waxay ku qiyaasayaan lacagta ugu dambaysa ee lagu kala iibsado gabadha 7,000 euro. mid kasta oo silsiladan ka mid ah wuxuu dul saaranayaa lacag dheeraad ah. qolada gabadha iibsatay hadday u guurin waayaan wiilkooda waxay isku dayayaan inay u guuriyaan reer kale, sababtuna waa inay soo korsadeen, halkaasna waxay ka qaadanayaan lacag fara badan. inta badan waa ganacsi ay ku faa'iidaan. sidoo kale dalka Hindiya baaritaanada la sameeyay waxay cadaynayaan mar kasta oo raggu bataan in dambiyaduna ay bataan, iyo sidoo kale inay sare u kacdo dambiyada ka dhanka ah haweenka. Hindiya hadda waxay mamnuucday in la ogaado nooca ilmaha caloosha ku jira intuuna dhalan. sidaas ay tahay, Hindiya hore uma soo marin tirada gabdhaha caloosha laga soo tuurayo. sababtuna waxay tahay qalabka caloosha hooyada lagu baaro ayaa si fudud loogu ogaan karaa nooca ilmaha caloosha ku jira. arrintu kaliya waxay ku xiran tahay lacag iyo dhakhtar diyaar u ah inuu qaanuunka jabiyo. nolosha dabaqada dhexe ee Hindida ayaa soo hagaagaysa, waxayna doonayaan inay dhalaan ilmo yar, laakiin weli waxba iskama bedelin wiilasha laga doorbidayo gabdhaha, gaar ahaan dabaqada sare ee Hindida. amiisha waxay ahayd 25 jir markii ay guursatay injineer dhinaca kombiyuutarka ah. aabihii wuxuu ka shaqaynayay shaqo sarreysa oo dawladda ah. dalka Hindiya waxaa waajiba in wiilka guursanaya uu meher badan siiyo gabadha. meherka amiish wuxuu ahaa guri.
मतलब उन लोगों waxay iga rabeen inaan dhalo wiil si uu u dhaxlo reerka wax walba way iga qarin jireen waxay iga dalbadeen inaan dhakhtarka u raaco anigu maanan ogeyn waxay kula heshiiyeen dhakhtarka oo i baarayay markuu ogaaday uurka aan wado inuu yahay gabar wuxuu adeegsaday kelimad sir ah oo isla ogaayeen jay mata d oo macnaheedu yahay ilaahada muqaddaska ah sidaas ayuu ugu sheegay inaan uurka ku wado gabar kadibna dhakhtarku wuxuu ugu duray cirbad muddo kadib ayaan soo naaxay waxaana arkay inaan calooshayday ilmo ku jirin falkan waxay sameeyeen 6 mar muddo 8 sano gudahooda waxa dhimanayay ma ahayn gabdhahayga oo kaliya mar kasta waan la dhimanayay waxaan ahaa qof gudaha ka dhimatay markii aan uurkeeda lahaa gabadhaydan hadda waxay isku dayeen inay sameeyaan sidii hore laakiin waan ka diiday waxaana aaday gurigii hooyaday waxay isku dayeen inay halkaas iga soo qaadaan kadibna dhakhtarkii ii geeyaan laakiin marnaba kama ogolaanin amiisha markii ay gabadha dhashay waxaa diiday reerkii ninkeeda arrintani hindiya gudaheeda waxay la mid tahay in toog lagugu xukumay si tartiib ah ayaa waxaa hoos ugu sii dhacaya carruurta gabdhaha ah ee dhalanaya sida qaramada midoobay ay sheegtana waxaa ilaa hadda baahi loo qabaa in ka badan 177 milyan oo gabdhood waxaana sii badanaya waddamada dadkoodu ay gabdhaha uurka ka soo tuurayaan tiradu hadda waxay gaartay 19 dowladood sida hindiya kuuriyada koofureed waxay ahayd waddamada dadku ay wiilasha ka doorbidayaan gabdhaha waxayna reer galbeedka ka helaysay taageero dhaqaale oo aad u fara badan muddo 50 sano ah kuwa isku magacaabay qorsheeyaalka qoyska waxay ku guulaysteen in aad hoos ugu dhigaan ilmaha dhalanaya meeshii celcelis ahaan qoys walba uu dhali jiray 6 carruur ah hadda waxay marayaan 1 cunug sidaasna waxaa aad hoos ugu dhacay tirada gabdhaha ee dalka kuuriyada koofureed beeralayda halkani degan ma haystaan gabdho ay guursadaan sidaa darteed waxay isku dayaan inay gabdho ka raadiyaan waddamo kale sida Vietnam waxay leeyihiin waxay ugu kacaysaa lacag gaaraysa 8,000 oo euro da'deeduna waxay ahaanaysaa 20 jir inta badan waxay dhalaan carruur qurux badan gabdho badan oo sidaas ah ayaa hadda ku nool xaafadeena halkan waxaa ka bilowday ganacsi aad u faa'iido badan badeecada la iibinayana waa gabdho ayadoo gabdhaha laga soo dhoofinayo waddamada dariska ee saboolka ah arrintani waxay dhacday 10 sano oo si iskooda ay haweenku iskaga soo tuurayeen gabdhaha laakiin kuuriya waxaa haysata dhibaato kale oo ah in dhalinyarada kuuriyada koofureed ayna doonaynin inay ilmo dhalaan sidaasna waxaa ku sii duqoobaya dadka waddanka amaradii dawladda ee adkaa ayaa mar kale dib u bilowday halkii 50 sano ka hor lagu dhiirigelinayay haweenka inay ilmaha soo tuuraan maanta arrintaasi ma ahan mid laga soo dhaweynayo bulshada dhexdeeda sidoo kalena waxaa loo mamnuucay qaanuun ahaan labadan gabdhood waxay ka sheekeynayaan dacaayadda ka dhanka ah soo tuuridda carruurta oo ay la kulmeen inta ay dhiganayeen jaamacadda bilowga ayaana loo dhigaa qaabka ilmuhu ka abuurmaan iyo qaabka carruurta loo soo tuuro intaba waxayna tusaan muuqaallo muujinaya in ilmaha la soo ridayo qoorta laga soo gooyo kadibna cadad yaryar loo jarjaro isla markaana la soo tuuro qaabkaas ayay dadka u tusiyaan hadda ilmaha la soo tuurayo waxay ku tilmaamayaan inuu yahay dil muuqaalkaas ayaa maskaxdeenna ku dhegay marnaba kuma dhiiran karno inaan ilmo soo tuurno haddaan samaynana wuxuu noqonayaa ficil aad iyo aad u foolxun waxay diyaarinayaan daraasad shahaadada mastarka oo ku saabsan ilmaha la soo tuuro waxaa mas'uul ka ah Wang Sitong oo muddo rubco qarniya madax ka ahayd macahadka daraasaadka haweenka ee magaalada Seoul التي قادت معهد دراسات المرأة في سيول لربع قرن daraasada waxay ku ogaadeen hay'ado si sharci darro ah u taageeraya soo tuuridda carruurta oo dhaqaale aad u fara badan ku bixinaya mashruucan mar kale ayay haweenku dhibanayaal u noqdeen siyaasadda ku aadan yaraynta dadka dunida soo tuuridda carruurta qaab aan sharci ahayn waxay wadataa dhibaatooyin aad halis u ah laakiin xukuumadda kuuriya waxay ku adkaysanaysaa mamnuucidda soo tuuridda carruurta maxaa yeelay maanta waxay dadaal adag ugu jirtaa sare u qaadista tirada dadka xukuumaddu maxay doonaysay markii ay sharciyeysay soo rididda carruurta ma waxay rabtay inay xoojiso xuquuqda haweenka maanta ayaan fahmaynaa inuusan arrinku sidaas ahayn laakiin arrinku wuxuu ahaa in la joojiyo dhalmada jirka haweenka ayay u isticmaaleen cayaarta siyaasaddooda
xukuumadda kuuriya waxay internetka ku faafinaysaa khariidad caddaynaysa goobaha laga heli karo haween carruur dhali kara mar kasta oo kalarku madowga u sii dhowaado waxay tusinaysaa in gabdho badan laga heli karo goobtaas dhinaca kale dowladda Shiinuhu waxay garowsatay in waddan aan haween lahayn uu baabi'i doono sidaa daraaddeed hadda waxay ogolaatay in laba cunug la dhali karo si ugu yaraan ay iskugu dheelitirto haweenka iyo ragga iyadoo uga golle inay hakiso mujtamaca sii duqoobaya mar kale ayuu xukuumaddu digniino ku soo dhajinaysaa darbiyada iyadoo markan fariintu ku socoto haweenka iyo gabdhaha mustaqbalka hooyooyinka noqon doona gabdha la'aantu waxay ka dhigan tahay inaan wiilashiinu guur heli doonin mar kale ayay xukuumaddu isku dayaysaa inay bixiso abaalmarinno dhiirigelin ah qofkii gabar dhala wuxuu heli doonaa 28 yuuro oo ah mahadcelin uga imaanaysa wasaaradda qoyska munad beyti oo ah doctor haweenka ah wuxuu dareemayaa cadaadiska saaran hooyooyinka uurka leh wuxuu sameeyaa qalliimo uurka lagu soo ridayo laakiin ma ahan marka arrintu khusayso nuuca ilmaha wax faa'iido uma arko dhiirigelinta dhinaca xukuumadda ka imaanaysa ee abaalmarinta lagu siinayo qofkii gabar dhala bal ii sheeg hal sabab oo ku qasbayso hooyada inay gabar dhasho iyadoo weligeed iyadoo aan iskuul tegin maalintay dhalatay ilaa maalintay weynaatana lagu lahaa waxaa tahay wasakh wax qiimaana ma lihid maadaama aad tahay gabar hadday uurka gabar ku qaado waxay ku dhex nooshahay guri nafteeda ay halis ku jirto hadday dhashana ay wax walba khasaari doonto sidee baad ugu qancin kartaa hooyadaas inay gabar dhasho ma waxaad ku qancinaysaa riwaayad gabayo amaba hadallo laga sheego telefishinka ma dhacayso taasi suuragalna ma aha halku wuxuu ku jiraa in dadka la fahansiiyo inay gabdhaha ixtiraamaan waxay doonayeen inay adduunka ka badbaadiyaan tirada dadka oo faraha ka baxda halkii ay dagaal ku qaadi lahaayeen saboolnimada ayay beddelkeeda waxay dagaal ku qaadeen dadkii saboolka ahaa waxay awoodeen inay taageeraan waxbarashada gabdhaha iyo sidoo kale in noloshooda dhaqaale sare loo qaado iyadoo la og yahay in dhalmadu iska yaraan lahayd hadday sidaas sameeyaan taa beddelkeeda waxay taageereen siyaasadaha haweenka ku qasbaya in maldhalays laga dhigo ama ilmahooda ay soo tuuraan waxaad moodaa inaan reer galbeedku taariikhda wax ka baran maxaa yeelay weli waxaa dhaqaaluhu ku qulqulayaa mashaariicda ka hortagga dhalmada kuntumeeyadii iyo lixdameeyadii waxaa horboodaya barnaamijkan hay-ado sida Ford iyo Rockefeller waxaan dareemayaa walwal weyn marka aan maqlo in hay-adda Gates ay jihaynayso taageerada caafimaad ee la siiyo dunida waxay u eg tahay sidii hore markii xukuumaduhu ay ku dhawaaqeen in laga hortago dadka sii badanaya isla markaana qaramada midoobay ay dhaqaale aad u fara badan ku bixinaysay ka hortagga dadka sii badanaya dhinacyada qaar ayaa hadda ka sheekeynaya in tallaabo degdeg la qaado si looga hortago isbeddelka cimilada isla markaana loo yareeyo dadka mashaariicda yareynta dadka hadda waxay ku jihaysan tahay Afrika bangiga adduunka iyo hay-adda dadka ee qaramada midoobay ayaa malaayiin dollar ku bixinaya mashaariicda joojinta dhalmada sidoo kale hay-ada gaar loo leeyahay oo Mareykan ah ayaa waxay ku deeqayaan qalab lagu ogaan karo nooca ilmaha intuu caloosha ku jiro Afrika sida Asia oo kale wiilasha ayaa laga doorbidaa gabdhaha